maanta istaxasi habsamin laha uga socda gudahanba gobolka Sool iyo degmooyinkiisaba diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland iyadoo dhammaan shaqaalaha komishanka ay si mug looga qayb qaadanayaan bulshada ku dhaqan gudahanba gobolka Sool iyaguna ay isdiiwaangelinayaan waxa iyaguna qayb lixaad ka qaatay ciidamada qaranka iyo bilayskaba waxaana ka mid ahaa deegaanada ay sida habsamida uga socota diiwaangelinta degmada Kalabayd Xirxid Dhumay Saxdheer iyadoo dhammaan goobahaasi uu kormeer ku marayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Jumhuuriyadda Somaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax iyo wali wasiir dowlaha wasaaradda nabadeynta iyo horumarinta gobolada bariga Somaliland qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo dhamaantood ka qayb qaadanaya wacyigelinta diiwaangelinta Somaliland ee ka socota gobolka Sool isagoo gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu iska diiwaangeliyay mid ka mid ah goobaha ay diiwaangelintu ka socotay ee koonfurta gobolka Sool waxaa la arkay dadweynaha aad u tiro badan oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha ay ka socoto diiwaangelintu kuwaas oo isku diyaarinaya sida ay codkooda iyo codadooda muujin lahaayeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada iyo wafdiga hogaaminayo Mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa markii ay dhameeyeen kormeerkoodii ka warbixiyay sida ay shaqada diiwaangelintu ay uga socoto guud ahaanba gobolka Sool gaar ahaan koonfurta gobolka Sool waxaan maray safar diiwaangelintii dhowr meelood baan maray waxaan ka bilownay qaydarka si fiican bay uga soconaysay waxaan tagnay Kalabayd oo 4 seeji yaaleen waa ka baxnay waxaan tagnay Dhumay waxaan tagnay Xirxid oo iyadana 3 seeji yaaleen si fiican baa diiwaangelintu u socotay dadkuna si fiican bay u soo baxeen waadna arkaysaa waxay ku socotay nabadgelyo si fiican nabadgelyo u wada socotay meel walbana sanaaduuqda hawdka ilaa waxa la dhigay dabataag ayaa la dhigay intaba si fiican uga socotay marka hadii la yiraahdo maanta kormeerkaas aan u baahay bari subaxna waa ku noqonaa dadkana waxaan reer Sool ku wacyigelinayaa u sheegay fariinta u diraya inay sida ay u socoto si fiican diiwaangeliyaan nabadgelyadana ay ilaaliyaan oo sida nabadgelyo ay ku dhamaato ilaahayna waxaan ka rajeynayaa waxa weeye in cod fiican oo lagu farxo laga keeno Sool arinta waxa u dhaxeeya waxa weeye wax qabadka laga sameeyay Sool in badan waxaan lahayn dadka haday arkaan dadkii wax loo qabanayo waa aragto magaalada waxa laga qabtay waxa dadkii kalsooni badan baa soo gashay waadageeyo waxa timi dawladii oo dhan baa timi madaxweynihii baa u hoyday oo joogay dadkii waxay arkeen inay dantooda ku jirto in Soomaaliya wax loo qabanayo wax qabasho muuqaal jirto madaxweynaha inta jeer la saanood yimid waad ka warhaysaa marka dadkii niyo wanaagsan ayay ku galeen waana isbedeeno dhulka aan tagnay weligood laba keen seecho maanta se waxa weeye niyad sami ayay isku diiwaangelinayeen golaha diiwaangelinta ayaa ka bilaabmay degmooyinka doorashooyinka ee gobolka Sool sida degmada Taleex Xudun Kalabayd iyo Goori iyo waliba degmada aan cadeeyay ee gobolka Sool waa barxad Umar Axmed warbaahinta qaranka Jumhuuriyadda Somaliland la saanood